waa dhacdo la yaab leh oo ay aad u hadal hayaan Soomaalida ku nool waddankaasi Sweden ee qaaradda Yurub. Waa gabadh Soomaaliyeed reer Muqdisho oo silic iyo saxariir uu mariyay ninkii ka iibiyay leynka dacwadda Sweden ayaa gabadhan fal naxdin leh oo argagax leh ku sameeyay. Cadhadii iyo nacaybka ay u qaaday Soomaalida ayay guursatay wiil u dhashay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Aabaheed markii uu maqlay saacado kadib intuu u reebay fariin ayuu walaasheed u soo sheegtay in aabaheed uu geeriyooday. Kadib markii gabadhani ay nolosha ka rideen gabdho kale oo Soomaali ah, muuqaallo argagax lehna lagaga faafiyay baraha bulshada. Kadib markii maamo Soomaaliyeed oo la doonaysa wiil kale ay lacag ku bixisay si gabadhani sumcadeeda iyo sharafkeeda dhulka loo geliyo. Waa dhacdo aad looga hadlayo dalka Sweden ee qaaradda Yurub. Gabadhan ayaa xabsi gashay, xabsi 1 sano iyo dhowr bilood ah. dhacdadan aynu barnaamijkeena maanta aynu ku daaqaadaynaa. Ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u guda gelin, haddaa channelkan ku cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, soo dhawaada barnaamijka. adiga qorshiidile aqararka marso dhadhami wixii kula qurux badnaa in badan soo qowme. Gabadhan magaceedu waa Xaliimo. waxay ku nooshahay qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Sweden ee waddanka Scandinavian ka dhaca. Sanadihii dhowr iyo 90-meeyadii dhamaadkiisii ayay ku dhalatay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Xaliimo waxay tiri waxaan ku barbaaray oo ku koray Muqdisho. waxaan ahay gabadh reer Muqdisho oo 12 jir ah. waxaan la noolaabay tiri familygayga, hooyada iyo walaalahay. reerkayagu waxay ahaayeen qoys danyar ah oo aan dhaqaale lahayn. waxaanu ahayn qoys hela nolol maalmeedkooda oo keliya. waxaan ahaabay tiri Xaliimo, waxaa igu dhacay buufis dhoofa. waxaan arkay dhammaan dhalinyaradii magaalada intii badnayd ee aan aqaanay oo u wada dhooftay qaaradda Yurub. waxaan iska dhaadhiciyay in haddii aan tago qaaradda Yurub ay ka dhigan tahay inaan jannadii cagaha geliyay camal. aabbahay ayaan u sheegay bay tiri Xaliimo in magaalada dadkii dhalinyarada ahaa ee aan aqaanay ay wada dhoofeen. waxay Xaliimo aabaheed ka codsatay inuu dhoofiyo oo u diro qaaradda Yurub oo uu iibiyo leyn dacwada. aabbahay waxa uu ii sheegay inaanu gabadh isaga dirayn Yurub iyo wadamo gaalo ee gabadh yahay buu ku yiri waxbarashadaada wado oo dhamayso aqoonta aad barato ku shaqo tag. ma rabaanu inaan gabadhan dhalay aan u diro wadamo shisheeye oo ajnabi ay ku tahay. aabbahay bay tiri gaashaanka ayuu u daruuray codsigaygii. waxaan guud ahaanba aan joojiyay bay tiri waxbarashadii aan waday. waxaan ahay bay tiri qof uu ku dhacay buufiska dhoofka la yiraahdo. waxbarasho aan niyad u hayn ayaa i cuntami weyday, waana joojiyay oo waxa aan noqday guri joog, guriga iska fadhida. hooyaday markii ay aragtay inaan ahay qof qalbi ka dhoofa oo aan niyadba u hayn dalkeedii hooye Soomaaliya, ayay aabbahay iiga dhamaysay inuu leyn dacwada u iibiyo. muddo ayaa la raadinayay qof leyn dacwada haya oo gadaya ama iibinaya sidaad u taqaano. ugu dambeyntii waxaanu helnay bay tiri Xaliimo wiil ku nool qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Sweden. wiilkaasi waa wiil aan qoyskiisa iyo familgiisa oo dhan aanu nahay dad darisa. hal sekad ayaa noo dhaxaysa gurigooda familgiisa iyo guriga iyaga bay tiri Muqdisho. aabbahay ayaa la heshiiyey lacag dhowr iyo 10,000 oo dollarka Mareykanka ayay ku heshiiyeen. lacagtiina xawaalad ayay kala dhigteen. anigu lama socdo arrinkan oo dhan, balse waxaan si sabarays ah iigu sheegtay hooyaday. wiilka leynka gadaya waxa uu rabaa in caruur walaaladiisa uu ka kaxeeyo oo aan anigu u noqdo hooyo, kuwaasoo nagula nool xaafadda deganahay. Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri sidii ayaa la igu dhoofiyay oo waxaa la ii dhahay
carruurtan ayaad hooyo u noqonaysaa adiguna xaasnimo ayaa wiilkaasi kugu wadayaa ee waad baxaysaa ee diyaar garow oo waxaad tegaysaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya si halkaasi dacwadaada lagaaga sii dhameeyo fiisaha halkaasna aad uga sii qaadato. sidii ayaan ku soo baxnay bay tiri aniga iyo walaalihiis. gabadh xoogaa leeg ayaa nala socota oo isaga ay walaala yihiin oo ani ila baxaysa iyo wiilal yaryar. magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya ayaanu nimi bay tiri muddo sanad ah ayaanu joognay. nasiib wanaag waxaanu helay fiisihii waxaanuna nimi waddanka Suudaan ee qaaradda Yurub maadaamaan ku guulaysanay dacwaddii oo aan fiisihii aanu helay. Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri markii aan imi Suudaan ee gurigiisii lana ku dejiyey ayaa waxa ii bilaabmay bay tiri silic iyo saxariir. waxaana meesha ka baxday dhammaan wixii aan ka aaminsanaa Yurub. waxa uu wiilkii dacwadda iga iibshay ee aabbaha iyo faamiliga ka gaday aanu dariska qoyskiisa aanu ahayn uu bilaabay inuu ikantaroolo. maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay anoo wiil aan Soomaali isku naqaanay aan la hadlayo. inta uu xanaaqay bay tiri ayuu igu bilaabay handadaad. naayaad la hadlaysaa yaa ku dhahay rag la hadal sidee ku keentay inaad rag sukaansato erayo noocaas oo karaahiyaha ayuu igu harqiyay bay tiri. anigii waan yaabay bay tiri waxaan ku yidhi baro waa khaldan tahay aniga guurka iyo xaaska beenbeenta ah ee aad Yurub igu keentay miyaa run iyo dhab aad u mooday teedar kale waxbaaba kala iibsanaye waxaan shukaansanayo ciddaan la hadlayo xor ayaanu ahay adiga maxaa kaa galay. halkii ayuu igu bilaabay dagaal dhirbaaxa ayuu igula dhacay bay tiri timaha ayuu jiidjiiday. qayladii iyo buuqii dariskii ayaa isku soo baxay. qayladii iyo dariskii iyo buuqii dadkii caddaanka ahaa ee dariska ahaa ayaa isku soo baxay. booliiska ayayna waceen balse booliiska waxa ay rabaan inaa kiis ay iga qoraan aan dacweeyo ninkan si loo xidho. ani waan baqay bay tiri oo maan doonayn inaan jeelka cagaha u dhigo. Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa lanoo ka yeedhay degmada oo aan markaasi aadnay. markaasi carruurta aan wada soconnay ayaa la rabaa in la geeyo goobo waxbarasho. waxaana isaga loo sheegay inaan soo wado gabadha xaaskaaga ah. sidaasi ayaana isaga lagu soo dhahay maadaamaan anigu ahay xaaskiisa dhinaca dowladda. sidii ayuu nagu waday wuxuuna na geeyey degmadii. markii aan tagnay degmadii ayaa naagtii caddaanka ahayd ee na wareysanaysay waxaan u sheegay bay tiri inay rabto inay ninkan iska furto oo gurigan aanay niyad u hayn. naagta ayaa igu tiri waa inaad maxkamadda dacwad ka furataa halkani waa degmada hawshana ma qaabilsanin kadib hawshaada way soconaysaa. mar allaala iyo markii aan soo baxnay ee sidaa laygu soo dhahay ee aan taxi soo raacnay ayuu dhahay sidee afkaaga u soo marisaa dacwad iyo furiin. waaba igu dhex garaacay bay tiri taxigii dhexdiisa. cunaha ayuu igu dhegay. ninkii taksiila ahaa ayaa booliiska wacay wuxuuna bireegow ku qabtay meelaha gas stationka ama meelaha shidaalka ay baabuurta ka qaataan ee haywayada dhinaceeda. gabadha qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri anigu way tiri toos baanu la dagaalamay bay tiri markuu istaagay. carruurtii walaalihiisa way yaaban yihiin meelay wax ka bilaabaan ma yaqaaniin. booliiska ayaa yimi isagii xabsiga ayaa loo taxaabay oo waa la xidhay. maxkamad si loogu gudbiyona waxaa loo baahan yahay bay tiri inaan anigu dacwad aan ku oogo balse ma doonayo inaan dacweeyo oo wax badan ayaa iskaga kaaya xidhan. waa Soomaali
qoyskiisa iyo qoyskaygu waa dad darisa faamiligu inay isdagaalaan oo isku dhacaan ayaan ka baqayaa wax badan arrimaha sharciga ayaa iskaga kaaya xidhan aabbaha ayaan wacay waxaan u sheegay inaan rabo inaan Sweden ka wareego oo Jarmalka ama Norway mid ahaan aan iska dhiibaan u wareego aabaheed ayaa Xaliimo ka diiday una sheegay in Yurub aanay kala fiicnayn isku midna ay tahay ee aabe halkaasi ayaan kugu duceeyay halkaasi joog ayna khasab ku tahay inay joogto halkeeda intay sharciga helayso oo ay iska samirto Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri waxaan qaatay taladii aabaha iyo ducadiisa wiilkii dacwadda igu keenay ee maalin walba i garaaci jiray isagoo i garaacayana xabsiga loo taxaabay waa la iska soo daayay dhowr maalin kadib waayo wax dacwad ahna kumaan furin oo waayo dowladda xaas ayaan ka qornahay inuu i qabo ayaan dhinaciisa ka qornahay dhinaca dowladda waana la iska soo daayay isagii maalin maalmaha ka mid ah waxay tiri dowladdu waxay u qaadanaysaa inaan jecelahay isaga maalin maalmaha ka mid ah ayaan u galay bay tiri qof qolka fadhiga isagoo fadhiya wiilkii waxaan ku yidhi bay tiri walaal waxaanu nahay dad darisa reerkiina dad darisa ayaanu ahayn reerkiina oo ceysho milaxa oo walaalaha oo intaasoo sano darisaha walaalaha iyo anigu waxaa iyo walaalahay waa dad walaalaa oo meel ku soo wada koray waa maxay dagaalka ceejada iyo dilka adigu bilowday aniga maalin kasta booliiska ayaa soo waca waxayna rabaan inaan dacwad kugu furo anna ma doonayo sidee iila dhaqmaysaa ma rabo inaan ku dacweeyo oo lagu xidho dhowr sano lacag caydha ima siisid oo lacagtayda adiga ayay kugu soo dhacdaa waxba kaama arko guriga dhex fadhiya oo keliya lacagtayda caydha adiga ayaa qaataa walaalow sidan sidiisu dhaan ayaan ku yidhi bay tiri isagoo qolka fadhiga fadhiya oo raba bal inaan waaniyo waaba ka xanaaqay bay tiri Xaliimo ninkii aan waaninaya ayaaba xanaaqo hawada ismariyay kulahana ayaa ani lacag aan rabay inaan helo ayaan waayay adiga dartaa gabadhaan jeclaa oo carabaha joogta ayaan rabay inaan soo kaxaysto adiga ayaan ku keenay adna shukaansi lee bilowday na waxaan aad wada haddaad joojin weydo labada gacmood ayaan kaa jebinayaa aakhirna waan kugu dirayaa haddaan doono waan yaabay bay tiri intaan eegay oo xanaaqay ayaan ka dhaqaaqay oo ka tegay markaan arkay ninkan aan waxba ka soo naasacadayn dhibkii ayaan iskaga samray bay tiri Xaliimo waayo weli sharci maanan helin taladii aabbaha iyo ducadii aabbahayna niyadda ayaan ku hayaa bay tiri oo inaan sharci helo ayaan rabaa oo aan u samro sidii anoo ah cunto u kariya guriga u masaxa ayuu maalin dhahay qadada orod soo kari waxaan dhahay ma awoodo waan xanuunsanayaa maanta ee walaasha u dir waata qolka fadhiga fadhidee waa ka intuu hawada ismariyay oo isxanaajiyey oo dhahay walaashay waxba ma qabanaysee qadada kale haddii kale wixii kugu dhacaa adiga ayaa mas-uulka ah Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tidhi gabadhii walaashiis ahayd ayaa tidhi anaa karinaya markii ay maqashay qaylada ee walaal iska dhaaf gabadha aniga ayaa maanta ka karinaya ee way xanuunsanaysaa waaba ka intuu diiday oo igu soo halgaaday sixni miiska saarna annabay tiri ninka iska celin baan isdhaho waan ku ceshay bay tiri sixnigii waaba ka igu soo booday oo say tahay ii garaacay bannaanka ayaan u soo booday bay tiri markuu iga kacay waa aniga bulukeeti jajabay aruursaday maadaama aan dhagax lahayn Yurub oo bulukeetiyada yaryar ee jajabay ay ka yihiin waxuba waa aniga shiid iyo bulukeetigii guriga ku waalay oo daaqadaha kaga jajabiyey maamo iska dhalabay tiri
oo Turkiya Swedish iska dhaleen ayaa soo baxday. Booliiska ayay wacday maamadu bulkeetigeedii ayaa guriga ku jajabinaya oo aan guriga la dhacaya. midhaa maamadan bulkeetigeedii ka xanaaqsan tahay. naa idhig bulkeetiga idhig bay leedahay. ana tafaha ayaan kasii buuxsadaaba. booliiskii ayaa yimi bay tiri Xaliima waxayna xidhan isagii waayo sanku feed igala dhacay bay tiri. dhiig baana iga yimi. caddaymo inuu i garaacay baa laygu hayaa. waa ka booliiskii ii yeedhay oo rabaan inaan dacwad iga qoraan oo maxkamadda loo dhaadhiciyo xabsina loogu xukumo. anna waan ka cabsanay inaan dacwadan ka qoro booliiskana aan u gudbiyo. booliiska ayaa yaabay markay waxba iga waayeen dacwad ah oo aan saldhigiiba ka agwareegi waayey. waxay ii soo direen gabadh booliisa. gabadhii ayaa i tashkiilisay oo i dhahday magangelyo ayaad noo tahay. xuquuq ayaad nagu leedahay. sharcigayagu dumarka ayuu la jiraa. annagaa ku garab taagan. annagaa ku garab joogna. wax walba ayay igu tashkiilisay bay tiri. aniguna waan baqayaa. Xaliima oo qisadada sii wada ayaa waxay tidhi keliya waxaan ku adkaystay in ninkan layga wado oo lay geeyo meel kale. sidii ayaa dowladdu igu kaxaysay iina geysay meel lagu hayo dumarka tacadiyada la kulmay. waa goob waxbarasho leh, meelo la seexdo leh, cid kasta ay joogto. waa goob bay tiri xitaa la keeno dumarka nolosha ka dhacay. anigu wax fikrad ah kama haysto goobtan lay keenay. waayo waxaan ahay bay tiri gabadh yar oo xamar laga keenay oo 12 jir ah. meeshii markii lay geeyey waxaan ku bartay bay tiri gabdho aan moodayay inay wanaagsan yihiin oo Soomaali ah. qaarkood nolosha ayay ka dhaceen. qaarkood khamriga, xashiishada, shiishada, lacabeel la nuugo ama badeecada sidaad u taqaano. wax kasta oo balwada way barteen bay tiri. ninkii markaan dacwad ku furi waayena anigana meesha lay keenay waa la iska soo daayay. gabdhahan aan meesha ku bartay bay tiri ee nolosha ka dhacay qaarkood balwad ayu nooc aanay u aabba yeelin ayaa waxaa dhacday bay tiri in gabdhahani ay xitaa khamriga, xashiishada, shiishada, wax kasta oo balwada way barteen oo way cabbaan. waayo waa gabdho bay tiri xorriyad helay oo cagta furay. waxay tiri anigii gabdhihii ayaan saaxiib ila noqday. biyo kaa badan iyo daad kaa badanba way ku hafiyaan bay tiri. markasta cidda aad la nooshahay sida ay yihiin si kasta aad u wanaagsan tahay way ku duufsanayaan gooray ku duufsadaanba bay tiri. dhalinyaranimo ayaa qaaday. markasta waxay isku dayaan bay tiri inay tashkiiliyaan oo i baraan balwadda. way i wadaan xaflado dalxiis ayay geeyaan. tumasho ayay xitaa iga dalbadaan inaan meelaha lagu soo tunto ee baararka aan aado. marmar way khasbaan oo iska aadaa iska daawadaa. qaarna waan raacaa qaarna waan ka diidaa bay tiri. muddo markii aan meeshii ku jiray iskoolna lay geeyey ayaa waxaa lay siiyey guri oo dowladda ayaa siisay gurigaasi. wax walbana waa lay dhigay. tiifigii, qasaaladii, wax iga maqan haba yaraatee ma lahan bay tiri. balse bay tiri nasiib darro intii aan meeshaas ku jiray ayaan balwadaha qaar bartay. xijaabkii waan tuuray. surwaal iyo shaar ayaan xidhaa. nafis ayaan dareemayaa. waayo xijaabadaba maan baran intaan meeshaas ku jiray oo madaxa ayaaba igu xanuunaya maba awoodo inaan xidho. gurina waa lay siiyey bay tiri markii meeshaasi lacag caydhana waa lay bilaabay. lacagtii caydha ahayd ayaan hooyaday bil kasta waxaan uga diri jiray bay tiri $150 Mareykanka. bil walba xawaalada ayaan ugu diri jiray 1 bisha. anigoo jawi degan iskaga jira ayaa gabdhihii nolosha ka dhacay ee meesha aan ku wada jirnay ayaa ii yimi. waxayna igu yimaadaan guriga. anama diidi karo waa Soomaali aan meel ku wada noolayn balse ma jecdi balwadooda oo waxaan inaan ka baxo ayaan doonayaa. inkastoo aan xoogaa aan wadwado balwadda
muddo yar kadib waxay i bareen bay tiri balwadihii waaweynka ahaa. waxaan bartay bay tiri shiishadda, khamriga iyo wax walba balwaday cabbi jireen. inaan marmar ka bado xitaa khamriga ayay markii horeed, balse hadda say tahay ayaan u cabbi jiray. wixii way ila tageen bay tiri, waana ku talax tegay. aakhirkii xijaabkii iyo wixii oo dhanna waan tuuray bay tiri. surwaal iyo shaar ayaan xidhay, timaha waa sii daayey. dhaqanka Yurub ayaan isu ekeeyey. Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri, jabba waa ka dambeeye. gabadh ka mid ah asxaabtayda ayaa hooyadeed dacweysay. hooyadeed ayay maxkamad ku furtay. gabadhaasi waa mid balwadda si cad u cabta oo si xad dhaaf u cabta balwadda. si xad dhaaf ayayna balwadda u isticmaashaa oo waa waaweynka bay tiri. waana ta aan la saaxiibay ee i bartay balwadda aniga. markii hore aan meesha tegay, meeshaasi laygu xireeyay shaltarka. waxbarashadii ayaan tegi waayey bay tiri. wax kasta oo dantayda waan tuuray. hooyaday ayaan biilkii u awoodi waayey, waayo aniba ima dheera. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo wacday bay tiri gabadhan hooyadeed. waxaana dhahday, hooyo, waxaan rabaa inaad i badbaadiso. caawimo ayaan kaa doonayaa. maxkamad ayaa layga yeedhayaa. maxkamad ayaa lay saarayaa oo gabadhayda ayaa i saaraya gabadhaa saaxiibta tihiin. gabadhaa saaxiibta ah ee aan dhalay ayaa i dacweysay ee hooyay badbaadi. oo maalinka maxkamadda ka mashquuli oo lacag ayaan kuu soo dirayaa maalin walba si wax kastoo ay ku ilaawi karto oo meeshaasi aanay u awoodi weydo inay tagto ee samee oo iga jeedi oo mashquuli si markay u iman weydo aan u guulaysto dacwadda. okay ayaan dhahay. gabadhii aan anigu dacwadda ugu furo oo aan uga guulaysto, gabadhaas iga jeedi, anna waan ogolaaday. haye ayaan ku yidhi bay tiri. lacagtii hooyadeed ay soo diri jirtay ayaan siiyey, maalin walba siiyaa. waaba talo orodo oo khamri iyo balwad iyo waxay doonto waa ta tii ku doonata. waa taan sidii wiig ugu waday. maalinkii u dambeysay ayaan siiyey lacagtii khamriga. waan ogahay inay ku soo gadanaysee si ay maxkamadda u tegi kari weydo. wakhtigu hurdo auna uga tagto. aniguna xitaa waan la cabay bay tiri. waayo khamriga markaaad cabto saacado badan ayaad hurdaysaa bay tiri. sidii ayay hooyadii ku guulaysatay. gurigayga ayay maalinkii maxkamadda ay wadhnayd oo hurday. waa ta soo kacday makhrib oo yaraatay intay naxday oo soo hambabartay ayay xasuusatay inay maxkamad saaka ay lahayd. waayo anigu waxaan fulinayay talada iyo amarada hooyadeed si gabadhan ay hooyadeed maxkamadda ugu furin oo aanay uga guulaysan haddii ay tagto. intay xanaaqday bay tiri ayay dhirbaaxo iga soo jartay oo dhahday, waad i khiyaamaysay. hooyada ayaa lacagta ku siin jirtay soo maaha oo anna i dhaafisay ballantii maxkamadda. haddeer ayaan isdilayaa bay tiri. waan baryey, ha isdilin ayaan ku idhi. waan daba orday, gurigiina waa ka soo baxday. ismana diline ee iyadoo surwaal lugagaaba iyo garan wadata oo timuhu qaawan yihiin ayay iga tagtay bay tiri. sidii anoo u jeega, anna kamaba fiicniye balwadda la qabsaday, macaansaday, iskool aadi waayey, lacagtii layga goostay ayaa maalinkii dambe gurigii lay dhahay, waa lagaa saarayaa haddaanad waxbarashadaadii ku soo laaban. gabadha oo qisadeedana soo sii wada ayaa waxay tiri, waxaan markaas la darisahay bay tiri wiil iiraani ah oo sunni ah oo soomaalida la soo shaqeeyey. wiilkaas waa wiil waxbartay, mar kastana waano ayuu ila yimaadaa oo waa ii waaniyaa. waxa uu dhaca, Xaliimo maxaa ku bedelay? gabar sharaf leh ayaad ahayd. naagahan ka hadh, nolosha ka dhacay. waano ayuu daba ii qabtay bay tiri.
inta aan dheg ka dhegaysto ayaan dhegta kale ka sii daayaa warkiisuba iguma socdo isagu waa yaaban yahay gabadha see loo qaaday see alla u galay ayuu leeyahay aroor walba waa u waanayaa balse aniga waxaas nin u jeeda haba yaraatee maihi bay tiri qof gabadh u jeeda haba yaraatee maihi dhegta ayaan ka dhegaystaa dhegtaa kalena oo ka sii daayaa iska hadlow inegare sidii anigoo ku socda bay tiri ayaa gurigii layga qafisay bay tiri markii dhowr jeer dignino boostada laygu soo diray uu isagu soo waco oo igu yidhaahdo nahaadhe boostada warqado muhiima kuu yaala ee kaalay aniguna meelaha baararka iyo gabdhahan iyo waxaan aan iskala tumanayo sidii anoo ku socda ayaa gurigii layga qafishay bay tiri dowladdiina igala noqotay meel cidlaa ayaan ku soo dhacay bay tiri gabadhaan isbaranay intaan meesha joogay oo xaamilo ah ayaan wacay waan waayay bay tiri telefoonka maalinkaas waaba u dansanaa maamadii gabadheedii igu laaluushi jirtay si aan maxkamadda uga habsaamiyo ayaan wacay bay tiri dhibkaygii qisadii baan uga warramay inaan cidlo taaganahay gurigii laygala noqday lacagtii caydha ahaydna layga goostay maamadii ayaa aaday maamadii ayaa tiri kaale aniga ayaa wax walba ku siinaya gurigaygula noolow maamadii anigoo iskala jooga bay tiri oo gurigeeda uga shaqeeya oo cuntada u kariyo halkii iska jooga ayay dhahday maamu muddo 3 bilood ayaan ku hayaaye intaa ka badan kuma hayn karee ismeele oo ishabee oo isdabar meeshu waa Yurube anigii bay tiri yaa fajac waxaan sameeyay ayaan garan waayay bay tiri sidii ayaan ku dhahaye waan ismeelaynayaa hadday sidan tahay waayo dhareerka waa la iska tiraa qofka madaxa hoos looma rogo gabadhii xaamilada ahayd bay tiri Xaliimo ee labada caruurta lahayd ee aan wici jiray ee aan waayay nasiib wanaag waan helay maalinka markaan wacay arrinkayga ayaan uga warramay bay tiri gabadhii ayaa tiri waa caadi walaal ee kaalay aniga ayaad ila noolaanaysaa gabadhii baan aaday bay tiri anoo gabadhii la jooga ayay gabadhii waxaa gashay safar oo waxay dhahday walaal waan baxayaa muddo ayaan la noolaa bay tiri walaal waan baxayaa Jarmalka ayaan aadayaa ee gabadh kale oo aan saaxiibo nahay baan wacay oo aan kula hadlay ee gabadhaas aad way ku sugaysaaye gabadhii baan u tagay bay tiri gabadhba maahe waa maamo caruur leh waa gabadh weynaan ku guursatay oo weyn laakiin oo maamo aad moodo balse balwadda aanay u aabba yeelin balwadda ay wado madaxaaga ayaa diidaya bay tiri annagiga waaba naga daran tahay gurigeeda ma ka dhammaadaan bay tiri maalin iyo habeen raggu gurigeeda ayay maalin walba raggu iman jireen ku barjayn jireen ku qayili jireen khamriga ku cabbi jireen shiishada ku cabbi jireen anigii waan cabbaabay tiri waxaan oo dhan wayga agteeda waa ka caadi maadaamaan hore laysoo habaabiyey oo balwadan hore laysoo baray markaan doonana waa la tuurtaa markaan doonana waa iska dhaafaa bay tiri balse khamriga iyo cabitaanka iskuma badan jirin bay tiri raggii ayaa damac iga galay guriga iman jiray bay tiri waxay damceen in khamri siiyaan oo say doonaan iga yeelaan habeenada ka mid ah waan dareemay in wax khaldan yihiin waan ka diiday oo waxaan dhahay bay tiri Ramadaan ayaa soo galaysa oo soo dhow oo ma rabo inaan cabbo waayo way igu og yihiin inaan khamrigan cabbo sidaas ayay leeyihiin waxay sameeyeen oo naagta aan la joogtona ila rabtaa inaan la tunto nin ay iyada asxaab yihiin oo Carab iyo Soomaali iska dhaleen waa Carab iyo Soomaali iska dhala naagta aan la joogay ay asxaab yihiin naagtan ayaana ila rabtaa markay arkeen inaan diiday ayay kiniin sharaab igu dareen anna sidii ayaan meel ugu dhacay nasiib wanaag waxba igumay samayn bay dhahay Xaliimo qisada si wadaaya waxay tiri
anigii waxaan kacay bay tiri iyadoo meeshii aan xalay fadhiyay jiifa oo ah qolkii fadhiga laakiin waxay sameeyeen way igu sameeyeen waxaanan filanayn sawiro anoo surwaal wata lugagaaba dhareerkuna iga da'ayo oo hurda ayay iga duubeen iyo muuqaalo iyo sawiro iswata ayay iga duubeen bay tiri waxay igu hanjabeen bay tiri inaan ninkan la saaxiibo maamadii ayay igu hanjabaysaa haddii kale sawiradan baahinaynaa ani cadho ayaan ka qaaday naagtii gurigeediina waan uga soo tegay intaanu islaynay wiilkii iiraaniga ahaa ee iwaanin jiray baanu imi markuu arkay sidaanahay sidaan u oolo wuu yaabay halkii ayuu waano ka bilaabay waxa uu leeyahay xaliimo gabadh fiican baad ahayd sidan maxaa kuu galay miyaa istabaqabateed maalin walba waan kula hadlaa dad baa ku sugaya ehel baad leedahay warqadaha boosada xitaa kama jawaabtid ani madaxa ruuxa oo way tiri oo markasta hadaladiisa markii hore iguma socon jirin laakiin hadda way igu socdaan bay tiri madaxaan ruuxayaa bay tiri iska ooyaya hadaladiisu way taabanayaan qalbiga ayay iga taabanayaan wuxuu dhahay wiilkii iiraaniga ahaa bay tiri aniga gabadh walaashay ah ayaa tahay aniga gurigayga soo deg guri weyn ayaan deganahay oo 2 qol deg qol aniga ayaa degaya oo alaabta store qolka kale yaal waa ka saarayna waan ka diiday bay tiri way igu khasbay waxa uu dhahay aniga gabadh walaashay ah baa tahay aniga gurigayga soo deg dawladda iyo meelaha lagu caawiyo qaxootiga ayaana ku geynayaa si gurigaagii lacagtaadii caydha ahayd waxbarashadaadii lagugu soo cesho intaad helayso dacwadda aynu wadnana gurigayga la noolow oo gurigayga imow waxay tiri waa qol iyo fadhi ayuu degan yahay waxa uu dhahay fadhiga ayaan seexanayaa adna qolka seexo waan ka diido waxaan ku yidhi aniga ayaa fadhiga seexanaya ani waan baqayaa bay tiri xaliimo sidii habeen walba 2 surwaalo jeemis iyo dhar adag ugu seexanayay ayay arkay maalmaha ka mid ah wuxuu igu dhahaa salaadaha bilow salaadaha tuko waa kan is astur sidaadii hore ku soo noqo surwaalkan iska daa waanadiisii igu wadaabay tiri mar ku shaqada ka yimaado ana cuntadaanu kariyaa bay tiri gurigaan sii hagaajiya intaan meesha joogo marka uu kaxeeyo meelaha dadka laga caawiyay qaxootiyadana aan ka nimaadno mar ayuu wuxuu dhahay oo arkay inaan ka baqayo oo habeenkii aan saraawiil badan iyo wax baan ku seexanayo ayuu wuxuu dhahay ani waxba ha iga biqin waxa aan joogaa buu yiri Yurub naag haddaan u baahanahay taleefanka ayaa iga xiga online-ka ayaan ka dalban karaa online-ka inaan ka dalbado kaliya ayaa iga xigtaa daqiiqado ayay igu imanay balse buu igu yiri bay tiri ani waxaan ahay wiil muslim oo nin muslim ayaan ahay dhaqan wanaagsan iyo diin islaam lagu soo koriyay wadamo badan oo qurbaha ana soo maray inaan dib ku geysto ma doonayo halkani waa Yurub la iskuma kufsado Yurub waxba ha iga baqin kuwa xitaa nolosha ka dhacay khamriye cabiintaahi kufsi ma ku fakaraan waayo meel kasta ayay ka heli karayaan waxan ay xooga ku raadinayaan Yurub cidna isma kufsato abaya ani waxaan ahay nin wax bartay ee caadi iska dhig waxaan rabaa inaan talooyin aan ku siiyo waxaan doonayaa bay ku tiri inaad cibaadaysato xijaab xidhato is asturto horta waxay dhahday markaas uu erayada aan afkiisa ka maqlay ayaan kala degay bay tiri salaadii waan bilaabay bay tiri balse waxaan isku kari waayay xijaabkii cambuurkii cabaayadii aan xidhan jiray waayo waxaan uma baran
waxaan u bartay nafis inaan madaxa sii daayo layrsado surwaal yaro jaga xidho jam isagu wuu igu waanayaa inaan is-asturo waxaad moodaabay tiri Xaliimo ninkan sidii mid la dhashay hooyaday aabahay ay dhaleen mindhaabay tiri ninkan waa Soomaali ayuu la soo dhaqmay oo Soomaali ayaa soo wanaajiyay oo Turkiga ayuu Soomaali la soo shaqayn jiray maruu arday ka ahaa jaamacad ka dhiganayay Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri sidii ayaan ahaa meel walba dawladda waa ila tagay bay tiri wiilkan Iiraaniga waa ila tagi jiray sidii anigoo muddo ku jiray ayay waxay tiri gurigaygii lacagtaydii caydhaydii waxaygii oo dhan waa la soo ceshay iyo waxbarashadii waa tagay bay tiri waxaas dhanna isaga ila dhameeyay bay tiri wiilkii waxaan u qaaday bay tiri kalkacayl sidii anoo ah ayaa waxaa dhacday wiilkii iyo naagtii aan la joogi jiray ee balwadda lahayd ee gurigeeda balwadda lagu cuni jiray iyadu xitaa cuni jirtay ayaa naag Soomaali ah oo page weyn oo Facebook oo shacab badan ay ku xidhan yahay leh sawiradeedii u dirtay lacagna way siiyeen sawiradii qaawanida iyo anoo nolosha ka dhacay ayay Facebook page weyn soo dhigtay dumarka Soomaaliyeed ee isu xaasida iyaga ayaa dhulka isla dhacay tiri sidii ayaan ceebtaydii banaanka ugu baxday bay tiri familygayga ehelkayga qaraabaday hooyaday cid walba ay aragtay waan xanaaqay bay tiri naagtii sawirada soo dhigtay ayaan ogaaday inay xaflad aroos ah imanayso oo markaasi ka dhacaysay magaalada xafladii arooska ayaa naagtii say tahay ugu garaacay bay tiri nabaro xunxun ayaan u geystay ul ayaan madaxa kaga dhacay dhiig badan ayaa ka dhacay bay tiri oo ka dareeray maadaama aan qorigan kibista lagu lawaxo aan madaxa kala dhacay bay tiri ani oroo sumaan imane dagaal ayaan boo imi waan u soo diyaar garoobay aniga markaa naagtii ka soo go'ay booliiska ayaa meeshii imaaday bay tiri xafladii waa lagu kala yaacay ani xabsiga ayaa lay taxaabay maxkamad ayaana lay saaray Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri maxkamad markii lay saaray 1 sano iyo dhowr bilood ayaa laygu xukumay maadaama aan dil geystay dhiigna aan ku daadiyay ciidda Sweden ee qaaradda Yurub 1 sano iyo dhowr bilood ayaa laygu xukumay iyo in dalka layga tarxiilo Xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tiri xabsiga waxaan ugu tagay wada gaangistar dad soo dilay oo criminal oo wada criminal miidhan oo nolosha ka dhacay ayaan xabsigii ugu tagay bay tiri aanin naxdin ayaan afka qabsaday bay tiri wiilkii hadaladiisii ayaan soo xasuustay oo igu maaxanaya wiilkii Iiraaniga ahaa waanadiisaan soo xasuustaa wiilkii ayaan si dhaba aan u jeclaaday bay tiri wiilkii ayaa maalin maalmaha kamid ah igu soo noqday oo xabsiga igu soo booqday wiilkii ayaan eegi kari waayay niyadda ayuu ii dhisayaa isagu sidii anoo xabsiga ugu jira oo xabsiga ku jiro waqtigiiba ilaaway ayaa lay soo daayay bay tiri isagu xabsiga igu soo booqan jiray cuntadu ii keeni jiray wii daryeeli jiray dharka ayuu doobii jin jiray oo soo dhiqi jiray waxay tiri waan ku ladnaa bay tiri markii lay soo daayay xabsigana layga soo daayay layma tarxiilin ee waa la iska kay daayay wiilkii ayaan u sheegtay inaan si dhab ah aan u jeclahay waxaan u sheegtay inaan jeclahay oo uu yahay qofka garabkayga taagnaa aadna ii soo daryeelay wiilkii Iiraaniga ahaa ayaa waxa uu dhahay bay tiri abbaaya amba waan ku jeclahay
balse gabadh walaashay ah baa tahay. Horta dib baynu ka wada hadliye. Aan kula dhammeeyay sidii aad gurigaagii iyo caydhaadii lagugu soo celin lahaa. Sidii buu lawyer igu qabtay bay tiri. Wax kasta waana la soo celiyay bay tiri. Lacag badan ayuu qarash gareeyay. Lawyer ayuu ii qabtay si laygu soo celiyo waxbarashadaydii, gurigaygii iyo caydhaydii iyo kaarkii caafimaadkaba. Wiilkii ayaan dhowr bilood kadib jacaylkaygii aanu sheegtay aan ku walax ila qabo. Wiilkii ayaan dhowr bilood kadib iskuursanay bay tiri. Reerkaygii ayuu iga doontay sidii iyadoo ay tahay oo aan sidii ahay. Aabbahay markii uu arkay bay tiri oo aanan ogeyn anigu ilaa waa la xiray markaa naagta dilay. Meelaan kala xiriirna may jirine. Aabbahay markii uu arkay sawirradii iyo wixii Facebook page-ka lagu baahiyay ayuu xanuun ku dhacay. Faalig wadna xanuun ayaa ku dhacay bay tiri. oo maalinkiiba ayuu dhintay odaygii. Maalmihii isbuuc ayuu sii noolaa bay tiri. Xaliimo qisada sii wada ayaa waxay tiri hooyaday waa iga rajo dhigeen. Dayro ayay iga dhigeen bay tiri. balse wiilkii Iiraaniga ahaa ayaa wax walba xaliyay. Hooyaday faamligayga iga maslaxay. Kadibna si toos ah iga doontay. Waxay tiri $10,000 Mareykanka oo Soomaaliya ayuu reerkaygii siiyay. Xaliimo qisada sii wada ayaa waxay tiri maanta caruur ayaanu leenahay. Ninkan waanu isku faraxsanahay, anigu waan jeclahay, isna si dhab ayuu ii jecel yahay. Maxamed Soomaali baa looga yaqaanaa bay tiri halkan aanu hadda ku noolnahay. Aad bay Soomaalidu jeceshahay, gaar ahaan ragga Soomaalidu aad ayay u jecel yihiin. Af Soomaaliga waa ku gabyaa bay tiri. Muqdisho xitaa waa tagnay oo muddo 2 isbuuc ayaanu joognay oo hooyaday baan soo eegnay. Waxay tiri oo hadda aan dhibsanaya oo ay haysta bay tiri hal mushkilad. Waxay tiri hooyooyin Soomaali ah ayaa sidaa ii silciyay. Wiil aan qoyskiisii aanu daris ahayn, nacayb aan ka qaaday dadkaygii Soomaalida ahaa ee nolosha iga riday ayaan halkaas u galay. Gabadhan ayaa waxay tiri hal dhib ayaan hadda la kulmaa bay tiri. Hal dhib ayaa haysta oo aan doonayaa talo iga siisaan iyo wixii aan ku dhaqaaqi lahaa. Hal mushkilad ayaan ilaa hadda aan la noolahay sidii aan u xalin lahaana aan garan kari lahay. Waxay tiri Xaliimo gabdhaha Soomaalida ayaa waxay ugu dhahaan Xaliimo naheerati Xaliimo caruur Shiica oo Iiraana ayay haysataa iyagoo og inuu Sunni yahay. Way cunsuriyeen bay tiri. Huruufka, dulmiga, caayada, xanta igu wadaan wad yaabaysaa bay tiri. Hadda bay tiri ninkaygu ayaan ka codsaday bay tiri markaan u adkaysan waayay inaan ka guurno magaaladan aan hadda deganahay oo aan meel kale u guurno. balse waa uu ka cudur daarto waa uu diiday oo waxa uu dhahay halkan shaqo fiican ayaan ku haystaa, shaqo fiican ayaan ku haysanaa, caruurta waxbarashada ayay noo dhigataa, iskuulka ay la qabsadaan ee kama guuri karnee iska samir ha u joojin. dhibkaas ayaan ku jiraa bay tiri Xaliimo. maxaan sameeyaa? ma ku khasbaa ninkan inaan ka guurno meeshan mise dhibkan ayaan ku jiraa oo halkan ayaan iskaga samraa oo guriga ayaan iskaga xidhnaadaa. haddaba daawada fadlan gabadhan talo ayay rabtaa ee talo iyo tusaale ayay u baahan tahay. talo walaalnimo sii oo fadlan commentiga ugu reeb. daawada gabadhan qisadeeda colaad iyo nacayb iyo dulmi iyo silic iyo saxariir ay u geysteen Soomaali ayaa waxa ay ku dhacday inay guursato nin ajnabi ah. qisada gabadhan ayaa naga codsatay in talooyin iyo tusaale laga siiyo. dhibkan ay la kulantayna ay ka waantoobaan,
gabdhaha Soomaalida hadda xilligan qaaradda Yurub soo socda ma oga bay tiri. Waxay tiri weliba Soomaalidu iyada ayaa iswanjasha qof aan ehelkaaga ahayn oo qaraabadaada ahayn Yurub dhexdiisa ha aaminin bay tiri. waayo wax kasta ayaa ka suurooba bay tiri. maalinka aad cidlo ku soo dhacdana banaanka ayaa lagu tuurayaa, nolosha ayaa laga ridayaa. Yurub waxba la iskuma ogola. Yurub horumar iyo qof wanaagsan lama ogola. Soomaalida ayaa isu xaasidina bay tiri. balse waxaan qisadan idinla wadaagayaa bay tiri si gabdhaha Soomaalida waxaan igu dhacay oo kale aanay igu dhicin. waxay tiri talana aniga siiya sidii aan yeeli lahaa ninkayga waan jeclahay. meeshan ayaan intaas dhib oo keliya ayaan ku qabaabay tiri ee fadlan tala iga siiya, taladiinaas ayaan ku dhaqaaqayaa. haddaba daawada gabadhan qisadan nala wadaagtay ayaa ku nool waddankaasi Sweden. bushaara dadweynow, shirkaddii ugu weyneed dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka dabiiciga ayaa maalgashi dhaqaale u furtay Soomaalida, gaar ahaan dadka shaqeeya ee mishaaraadkoodu aanu dhaafsanayn nolol maalmeedkooda oo keliya. haddaba ma tahay qof shaqeeya waxa soo galana aanay waxba uga soo hadhin? biilashi ma kugu badan yihiin? ma ka fekeraysaa fiiga iskoolka iyo jaamacadda semesterkeeda? kirada guriga iyo korontada walwal iyo walbahaar ma kugu hayaan? mase tahay dadka shaqooyinka xamaaliga ah qabta balse aan helin dhaqaale ay baahiyahooda oo dhan ay ku daboolaan? ma tahay qof han leh? ma tahay qof sumcad iyo sharaf iyo maamuus ku dhex leh bulshada Soomaalida? ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka adigoo gurigaaga jooga? ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkaddan iyo wax soo saarka shirkaddan ay leedahay? ma tahay qof ku xeel dheer arrimaha ganacsiga? haddaba jawaabtaadu hadday tahay haa, waxaa tahay qofkii loo baahnaa shirkaddan in ay doonaysay. waa shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka productiga. waa shirkadda Forever Living Product. waa shirkad 173 waddan xarumo ku leh iyadoo badeecooyinkeeda u dhoofisa guud ahaanba caalamka. shirkaddan Forever Living waxa ay sheerar waaweyn ku leh shirkado waaweyn oo Soomaaliyeed iyadoo xarumo ku leh guud ahaanba deegaanada Soomaalida. haddaba haddii aad tahay qof shaqadoona oo raba inuu maal gashado inuuna maareeyo guud ahaanba baahiyihiisa, fadlan hore u gaadh shirkaddan Forever. diiwaangelintu shirkaddan waa free, wax lacag oo laga qaadaya haba yaraatee ma jirto. waxaad helaysaa tababar free oo lacag la'aana. waxaad maamulaysaa dhaqaale xad dhaafa markaad dhammaysato tababarada asaasiga. shirkaddan gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah ayaa ka gaadhay darajada manager. gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaabaa Sacdiya, waxayna ku nooshahay dalka Mareykanka. Sacdiya waxay tababar iyo la talin siisaa bulshada Soomaalida, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhammaan dadka u baahan inay ka shaqaystaan shirkaddan una maareeyaan baahiyahooda iyo duruufaha adag ee ku gadaaman. haddaba daawada diyaar ma u tahay inaad adigu si iskaa ah u shaqaysato iyadoo ay ku caawimayso shirkaddu kuna siinayso dhammaan imkaaniyaadka aad u baahan tahay? haddaba fadlan hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. haddaba si aad isu diiwaan geliso una hesho warbixin dheeraada iyo macluumaad kugu filan, fadlan wac telefoonka shaashada ku qoran. waa lambar WhatsApp oo Mareykana ama daawada ku biir website-ka shirkaddan Forever Living. haddii kale lambarka telefoonka WhatsApp-ka waa